بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوضي لدلهانتي بميل كستا joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni duurjoogta barnaamijkeenan oo aynu ku soo qaadanayno labadii kooxood ee ku noolaa ama xuduudda ku lahaa wabiga Luangwa raxani waxa ahayd raxinta Wamba raxanta kalena waxa ahayd Meyti waxaynu ku guda jirnaa wali raxantii Wamba qaybtana waa qaybtii shanaad waana qaybtii ugu dambeysay taxanaheennii duurjoogtay inoo socday loogisidu marnaba kama maarmayso xuduudda Wamba maxaa yeelay xuduudda Wamba waxaa ku yaala caws waxaana ku sii harsan xooga Yurubiya ah oo wabiga ku sii harsan loogisida sidoo caadada ah maalin kasta waxay u baahan tahay 9 galaan oo biyo ah maantana waxay u baahan tahay inay cabto waxay loogisidii ku soo noqotay xuduuddii Wamba waxaana iyaguna sugayay oo goobta ku sii sugayay waxa weeyaan raxantii Wamba mid ka mid ah loogisida ayaa isagu ay u arkayaan raxantu inuu yahay fursadii ay ku ugaarsan lahaayeen midkan loogisida ay keligii noqday waa mid xanuunsan oo aan dhaqaaqi karin sidoo kalena dhaawacna qaba waxaa ku culus in uu raaco loogisida kale ee caafimaadka qabta mar walba raxantu waxay eegataa ka jilicdasan ama dhaawacan ama xanuunsan ama isagu yar kuwaasi waxay raxantu u ugaarsataa si fudud fursad baanay u noqotaa mar kasta isagu hadda waa keligii raxantuna waxay u arkaysaa inuu yahay cunto bisil weerarka maanta raxanta waxaa ka qayb qaadanaya waa arkay dhalay raxantani ee u madaxda ahaa ama boqorkooda ahaa isagu maanta wuxuu gelayaa ugaarsiga durba waxa uu bilaabay ugaarsiga seen wada ogsoonahay uu ka xoog badan yahay isagu goolaha iyo waliba aararka yaryar durba wuxuu bilaabay weerarkiisii
Arkii raxantu wuu ku guulaystay inuu keligii dhulka dhigo, waxaanu intii hadhay ee ama naqas ku dhejinahayd ama qabasho ahayd u daayay raxanta intiisa kale. Waxaa ku jira iyaguna aarar aan weli la eriyin oo aan qaangaadhin oo xilligii kooxda laga saarayay aan gaadhin, kuwaasi ayaa iyaguna dhankooda maanta fuliyey oo weliba naqaska ku dhejiyey. ama qabasho ahayd u daayay raxanta intiisa kale. Waxaa ku jira iyaguna aarar aan weli la eriyin oo aan qaangaadhin oo xilligii kooxda laga saarayay aan gaadhin, kuwaasi ayaa iyaguna dhankooda maanta fuliyey oo weliba naqaska ku dhejiyey. waa cunto ku filan qoyskan ama raxantan waanba dhammaan qoyskuna way wadaagayaan. qayb ka mid ah durba way fushay, qayb ka midna waxay sii wadaa cuntadoodii. raqda waxay rabaan inay dhammaystiraan oo qayb ayaa weli ku sii harsan cunitaankeeda. gabalkii ayaa dhacay, raqdiina wixii hadhay waa u yaallaan, balse waxaa soo uriyey waraabe raqda meeshan taalla, waxaanu durba soo abbaaray halkii ay taallay. hareeraha ayuu daymooday, kadib si toos ah ayuu ugu dhaqaaqay si uu u bilowdo cunitaankiisa. raxantu way ilaashanaysaa raqdeeda, markiiba way dareemeen waanay ku kaceen. dagaal dhex maray, waxaa yaacay waraabihii iyo weliba waraabayaal kale oo goobta iyaguna yimi. lo-ogisidu waxay ka soo safreen ilaa 12 mayl meel u jirta xuduudan waanba. waxay ka soo safreen dhanka xuduudda kale ee Meyti. lo-ogisidii way noqotay oo waxay ku noqotay dhulkii ay ka soo safreen.
dhowr lo-ogisiya ayaa xuduudda Wamba lagaga dilay. Raxantan Wamba waxay sugaysaa inta ay ka soo laabanayso lo-ogisidu oo ah meel u jirta 12 mayl. waxaanay dib ugu laabteen xuduudoodii. Lo-ogisidiina waxay ku laabatay way u socotaa dhankii ay marka horeba ka timi. waa tahay daawadayaal, barnaamijkeennii intaas ayuu ku dhan yahay. waa qaybtii 5aad waana qaybtii ugu dambeysay. inta aynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo.